السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله maanta waxaan rabay inaan muuskan inoo jarjaro haddii ilaahay yiraahdo insha Allah. marka wakaasi masha Allah xabada muuskaasi ayaa inoo jaraya insha Allah. inta xun waan ka goyn doonaa wakaasi asxaabay insha Allah. wakaadi ku soo dhawaada asxaabay wakaasi insha Allah. waxaan rabaa in aan yaryareeyo insha Allah. wakaasi muusku waa fitamiin badan, waa protein weeyaan, jirku u fiican yahay. marka asxaabay kareem ahaan baan rabaa inaan ka dhigo insha Allah. waxaan yar karin doonaa, intaasaan ka goynayaa. intaas ka goynaya, intaana wakaas waan ka reebay insha Allah. waxaa yara madmadow oo dhan baan ka reebayaa insha Allah. wakaasi asxaabay marka wakaasi asxaabay wakaasi distigan ku ridanayaa, waan karinayaa insha Allah. kusoo dhawaada insha Allah. wakaasi asxaabay wakaasi waan yar meerayaa insha Allah. clean baan ka dhigayaa, nadiifin insha Allah, maadaama rabno inaan isticmaalno marka dambe. waan yar meerayaa asxaabay. wakaa koobkaasaan ku shubo biyo insha Allah. mara wax badan dhow badato haaf yar baan ku biirin doonaa insha Allah. ku dhex karin doonaa koob iyo haaf insha Allah. asxaabay wakaas insha Allah waan soo kariyay, saas oo qiiqayaa insha Allah. xoogaa haynoo qabow ka yara meerayaa insha Allah. cream aan muuska ka sameeyaan insha Allah. waa protein weeyaan maasha Allah. wejigaaga u qurxinayaa, aad buu nadiif nooga dhigayaa. dee muus baad way kaa banmaleen insha Allah. kusoo dhawaada insha Allah. faa'iido leeyahay insha Allah. waan ka warami doonaa. asxaabay wakaa kalarkiisu isbedelay, aniga arkaya bunni yar buu noqday. kalarkiisu bunni buu noqday. waan ridqayaa makiinadan marin insha Allah. saas la socda, aad buu faa'iido badan insha Allah. dee matala maalintaad guursanayso oo kale gabdhaha caruusada aad buu waxa weeyaan waxaan ka dhigaynaa insha Allah xamaamul maqribi insha Allah. jirkaaga oo dhan waa clean gareynayaa insha Allah. asxaabay xabad timirana waan ku darsanayaa insha Allah. niido waan ku darsan doonaa, caanaha adag baan ku darsan doonaa, maaha ka jilicsanaa ka adag baan ku darayaa insha Allah. markaad arki doontiin haddii ilaahay yiraahdo. iyo galeedii cadeyd amba insha Allah daqiiqda ayaad ku darsan kartaa maasha Allah. marka asxaabay wakaasi xabada timirta ku asxaabay wakaasi insha Allah. waan soo ridqay wakaasi. waxaan rabaa ilaa 3 malqacdood amba 6 malqacdood inaan ku darsado insha Allah. halkan bismillah. aniga arkaya qurux buu noqday muuskii. 3 waxa weeyaan marka maasha Allah. wadarkatiin waa yar kuleyl insha Allah. marka asxaabay wakaa malqacadaas baan ku darayaa cornflour weeyaan maasha Allah. qurux buu ka dhigayaa, wejigan uu qurxiyaa, jirka oo dhan. maanta waxaan rabaa gabdhaha caruusadaha in ay jirka ku maydhaan, ay waxa weeyaan ku nadiifiyaan. nadiif uskaga oo dhan buu kaa soo goynaya. tanna waxaan ku uri cadaan bay kaa dhigaysaa maasha Allah. cornflourku aad buu fiican. haddaanad haysan daqiiq waad ku darsan kartaa insha Allah. wakaasi waxaan ku darayaa malqacad malab yar asxaabta, malqacad yar oo wax weeyaan caano jilicsan ma waa caano yar adag insha Allah. waa caanido oo kale insha Allah. wakaasi intaasaan isku garaacayaa because inta yar kulushahay. iyo waxaan ku daraa malqacad yar oo malaba iyo rose water insha Allah. asxaabay wakaa malabka aad baan ugu yareeyay insha Allah. wakaas intaa yar baan ku daray insha Allah. dad badan baan jecleen malabka, waa iska dayn karaan, laakiin hadday gabadha caruusada malabku aad buu ugu fiican jirka insha Allah. kusoo dhawaada asxaabay. wata waxaan maqaacada oo liintaas ayaan ku tuujiyay insha Allah. waxaweyaan liinta waa vitamin C weeyaan maasha Allah. wajiga aad buu qurxinaysaa, maadaama caruusada waxaad u baahan tahay fiitamiino badan insha Allah. jirkaaga inaad ku karin garaysid oo jirkaaga quruxsanaado insha Allah. waxa weeyaan waxaa ka daayir buu kareemku iska jilicsan, laakiin waa adkaan doonaa insha Allah. isaga ayaa adkaan doona. waxaan ku uri maasha Allah. Allahu akbar buu kaa dhigayaa, qurux buu kaa dhigayaa. hala tijaabiyo insha Allah. waxaan ku darayaa oo kale insha Allah saliidaha Lul's Kitchen amba Lul's Oils weeyaan. waxa weeyaan magacayga insha Allah waa Lul's Oil. marka insha Allah
waxaan doonayaa in aan ku daro waxa weeyaan saliidda simsimka. aad bay u fiican tahay insha allah, ha laga faa'iideysto. saliiddaas aad bay u wanaagsan tahay, aad bay khaasatan wejiga ayay aada ugu wanaagsan tahay. nigaarkaayo bismillah, intaasaan ku daray insha allah. malaa 10 dhibcood weeyaan insha allah aan u malaynayaa insha allah. maasha allah, haddaad olive oil haysatid ay saliidaad haysatid waad ku darsan kartaa, markaasuu adkaan doonaa insha allah. halkaas xaabe kareemkii markaste marka aad sameynaysid waxa weeyaan aad ku darsanaysid amba daqiiqda amba cornflour aad ku darsanaysid amba maxaa la yidhahdaa caana aad ku darsanaysid, waa inay diirimaad ahaadaan ee yar ku kululaadaan, ma qandac yar inay ahaadaan baa fiican. haddii kale uu kaa adkaanaya, iska ilaaliya, adayga iska ilaaliya, ma wanaagsano wixii inuu dhagax noqdo insha allah. waa inuu kareemku saas ahaadaa, saas ku yara jijiitaa maasha allah. sidaa markuu aad u yara haysid, sidaa u yara jilicsan yahay isaga ayaa adkaan doonaa, waad arki doontiin wuu iska adkaan doonaa. marka maasha allah, sidii haddaad doontiin wax aliya waxaad doontiin kale aad ku darsan kartiin insha allah. saasaad yar walaaqaysaa maasha allah. waxaan ugu talagalay waxaa weeyaan gabdhaha caruusadaha oo kale maasha allah qurux buu ka dhigayaa. muusku aad buu u fiican yahay, waa proteinaad weeyaan, jirkana uu qurxiyaa, uu cadaynayaa, waana jirkaaga nadiif buu kaa dhigayaa. maadaamaad caruusatay waxaad u baahan tahay jirkaaga inuu nadiif ahaada, uu udgoon ahaadaa insha allah. markaa laga faa'iideysto fursadda qaaliga, jirka ha lagu maydho. haddii aad caruusatahay waxa weeyaan markasta ood waxa weeyaan meydhanaysid inaad jirkaaga iskaga meydhatid, udgoon buu jirkaagana ka dhigayaa. kana faa'iideysta fursadda qaaliga. qofka bilaadanka inuu gacanta isku hayo aad buu fiican tahay insha allah. aad baa idiin salaamayaa waxa weeyaan insha allah. subscribe-ka, like-ga, sheerka walaalihiina kale insha allah aad u sheer garaynaysiin insha allah. ha iloobina insha allah. kii kalena waa kan insha allah. waa muuskii weeyaan iyo timirtii, waa muuskii timirtii insha allah. mulow luq baad ka siin kartaa sidii xamaamul maqribigii ayaad u marsanaysaa haddaad doontid. halka waad beersan kartaa, haddii kale intaad dhigatid talaagadaad ku ridanaysaa. waxa weeyaan talaagada markaad ku ridid 2 week baad haysan kartaa. wiigii 2 jeer haddaad iska marsatid amba 3 jeer aad marsatid ood jirkaaga ku kelin garaysid maca wejiga waad marsan kartaa insha allah. aniga marka aan sameeyo kareemka aan samaysto talaagadan gashadaa waan itusayaa insha allah. 3 week ayuu igu jiraa insha allah, waan isticmaalaa. kareemkaasaan samaystay insha allah. haddaad doontiin ka faa'iideysta. waa lubaana dakar waxa weeyaan cajiradahayga ku jira, ka faa'iideysta. waa nadiif buu kaa dhigayaa, udgoon weeyaan maasha allah. gabadha caruusada lubaana dakarkaana haddaad ku darsatid maasha allah adiga ayaa soo nuurka ayaad u nuuri doonta insha allah. marka waxaan ugu talagalay in aan ugu marsado intan aan imika usoo qaatay aan wejiga marsado. laakiin insha allah haddii aad rabtiin lubaana dakarka waad ka faa'iideysan kartiin. korkuu ku jiraa sa loo sameeyo, jirka uu qurxinayaa, waana udgoon maasha allah. caruusadaha aad baan ugu boorinayaa inay marsadaan jirkooga. waanaad ku darsan kartaa, intaad ku darsatid waad marsan kartaa jirkaaga insha allah. jirkuu qurxinayaa lubaana dakarku, waa udgoon weeyaan maasha allah. inta laakiin wejigaan marsadaa ma garan 3 week baan u malaynayaa, 2 week, 3 week, 4 week baan u malaynaya insha allah. uu yaalaa, waxba isma bedelin, aad buu fiican yahay. wakaa kareemkii saas uu adkaaday. marka insha allah uu adkaanaya, kana saas uu adkaan doonaa insha allah. showladan saaray ahayd lubaana dakarka oo waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa showlada ayaan ku sameeyey, waad arki kartiin. cajaladaha iga hore ku jirtaa. lubaana dakarka waa dawana, waa caafimaad, jirkana waa u dawo. marka insha allah laga faa'iideysto lubaana dakarkana insha allah. hala marsado, jirka hala marsado. haddaad caruusad tahay aad buu ku anfacayaa, iyo haddaanad caruusad baahayn insha allah. marka waa lubaana dakarkii kaasana gacanta ku hayo. marka maanta intan baan sameynaynaa. sidaasuu adigay isagaa adkaanay. wakaa imikaba waa isbedelay, waxa weeyaan isagaa soo adkaanaya insha allah. lubaana dakarkana cajaladaha hore ku jiraan, ha laga faa'iideysto. anu kuma darayo laakiin waad ku darsan kartiin, dhibaato ma laha, waad ku darsan kartiin. imikaanintani waxaan rabaa wejiga inaan marsado, laakiin idinku haddaad rabtiin waad ku darsan kartiin. aniga qudhadeeda waan hayaa, waan ku darsan karaa. marka waxaan ku uri jirkiina, waxaan ku uri dee ma sheekar, waxaan odhan karo dee ma dayaxa, sida dayaxa ayaad u ilaaci doontiin insha allah. gabdhaha caruusadaan ku boorinaya
gabadha caruusada hadday tahay huruud way ku darsan kartaa, wax kasta qasil baad ku darsan kartaa, maasha allah wax kastaad ku darsan kartaa. muuskaasi bils weeyaan waxaa deerka muuska weeyaan malqacad leendana waxaan ku daray malqacad orange aan ku daray, waad arkayseen waa orange. waxaan kaloo ku daray cornflower yaan ku daray, cornflower baan ku daray. waxaan kaloo ku daray niidoogaan ku daray, malqacada yareyd ayaan ku daray. marka maasha allah labadu waxaan ku cadaynaya haddii aan haasin cornflower haddii haasin daqiiqda caadigaad ku darsan kartaa, maasha allah adiga waxaan ku yaabi doona. marka waxaan ku week waa isticmaali kartaa insha allah. marka caruusadaha insha allah kusoo dhawaada, haddaad doonto huruud ku darso adigaa yaabi doona quruxdaada insha allah. aad baan idiin salaamaya dhammaantiin, walaalihiina kale noo sheer gareeya waxa weeyaan garanayn sida loo samaysto insha allah, se uga faa'iidaystaan. waxaad naftaada la jeceshahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, walaalkaana la jeclow. marka insha allah walaalihiina kalena u dira, hambarsadana ku maydhaan, jirkooga ku nadiifiyaan insha allah. isaga ayaa waxaan ku iri sida dayaxa uu ka dhigi doono jirka insha allah. halila soo socodsiiyo wanaaga iyo sharafta laga qaadanaya insha allah. waan idigu hambalyeynayaa amba waxa weeyaan cajaladihii aan duubay sidaad ammaanta iyo waxa weeyaan ilaahay naga jisaysiiyo iyo sidaad tiraada waan uga faa'iidaysanaa sidii cajaladii koofiga maasha allah. ka faa'iidaysta, wejigiina qurux buu ka dhigayaa. marka insha allah kana ka faa'iidaysta. jirka marsada waxa weeyaan gabadha caruusadu waxa weeyaan jirkayga marso, huruud hadday ku darsateen waa khatar maasha allah, aad bay faa'iido u tahay. anigu waa kaasi saasaan maanta u sameynayaa. hadday doonto badhaadhay ku darsan kartaa, bataatiskay ku darsan kartaa, waxa weeyaan ku ridqi kartaa insha allah. wax kastoo ood ku darsatid qurux buu kaaga dhigayaa. marka asxaabi waa kaasi jirkiina waxaan ku yiri jirkaa lagu maydho insha allah. aad baan idiin salaamaya dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabi waa kaasi insha allah, waa kaasi kareemkii waa soo adkaanayaa insha allah. yar haddaad daqiiqii baad ku adkaysan kartaa maasha allah. waxaan ugu talagalay caruusadaha insha allah aad ka faa'iidaystaan. waa kaasi jirka waxaan ku iri caafimaad maca xanuunada waxa weeyaan jirka ku dhaca ayuu ka dawo yahay. marka insha allah jirka waxa weeyaan waxa naturalka mari insha allah. dad badan baa jira oo daweyn jirka marsada, subxaan allah. waxa weeyaan haddii uu nabarkaaga dhaco jirkaaga waxa weeyaan nabarkaasi ma bogsanayo. matalan haddii wax ku saro haddaad daweyni jirkaaga marsid nabarkaasi ma bogsanayo ilaa ay waxa weeyaan meeshaasi ku go'do amba nabarkaasi kugu weynaado insha allah. marka asxaabi waxaan ku iri wixii natural amba acashaabta amba waxa weeyaan herbalka insha allah hala marsado, faa'iido badan buu leeyahay. waa inaga arkaya insha allah. khaasatan iyo qof kasta waa iska marsan kara, laakiin khaasatan aniga waxaan jeclahay gabdhaha caruusadu inay gacanta isku hayaan oo waxaan jirkooga ku nadiifiyaan. waxa weeyaan udgoon ayuu kaa dhigaysaa maasha allah. leen macaantii baan ku darnay maasha allah, orangekii baan ku darnay malqacad waa inaga arkaya. haddaad istiraado uu adakaado uu kaa adkaado waa kaa weli biyihii baa iska garab yaala, waa kaa waan ku darsan karnaa insha allah. haddaad istiraado uu adag yahay uu kaa adkaado kaabaad ku darsanaysaa, waa kaa dhibaato ma jirto, waad ku horjilcisanaysaa. wuu ku garab yaalaa, wuu kuu batay. aniga malqacad waxaan sameeyaa koob iyo haaf baan sameeyahayd. marka insha allah waxaan maxay ahayd haaf iyo koob iyo haaf baan sameeyahay. koob quraad ka dhigan kartaa. hadduu kaa adkaado waad soo qaadanaysaa, waad ku jilcisanaysaa insha allah. haddii adeeg fiican sidaana imika waa okay maasha allah, waa okay weeyaan. aad buu fiican yahay. jirkaaga wada mari, markuu ku yara engego 10 daqiiqo markuu ku engego maloloq iska sii tooshkaada ku jira amba adigoo baadka ku jira horteed yar baad marsanaysaa. intaan xamaamka gelin ayaad jirka oo dhan wada marsanaysaa. 10 daqiiqo ayaad ku yara joogaysaa, jirku wada gaarayaa, wuu ku engegayaa maasha allah. maloloq iska sii markaana iska maydh, taawalkaaga iskaga masax maasha allah. uma baanid wax kale. haddaad doonto saamuunta iskaga karin kare. wakaasi asxaabi waxa weeyaan 10 minutes ayaad ku joogaysaa, jirka uu galaya maasha allah. iska maydh marka qurux caruusad qurux badan ayaan ilaahay ka rajaynaa insha allah oo udgoona insha allah.
dee wakaasi waxa weeyaan weygii 2 jeer baad iska marsan kartaa, wax dhibaato le maaha. waa dee waa khudrad weyn, ma khudrad dhibaato kuma keenayso, khudradu dhibaato kuma keenayso, jirkaaga unbay kuu qurxinaysaa. waxaad marsanaysaa insha allah wiiga 2 jeer 3 jeer intaad doontid ayaad iska marsanaysaa, waxna la iskuma badiyo. wiigii 3 jeer haddaad marsatid talaagadaad gashanaysaa, waad samaysanaysaa markaste insha allah. haddaad aragti inuu kaa adkaadana biyahan ku yaal ayaad ku darsanaysaa. marka wakaa asxaabay, wakaa kareemkii wakaasi maasha allah, wejigood marsan kartaa, waxba kaama hor joogo insha allah. sidii xamaamul maqribkii waa maqribigii waad u marsanaysaa, jirkoo dhan waad ku kaliin garanaysaa insha allah. 10 daqiiqo 20 daqiiqo oo intuu kugu engego unbaad iskaga meedhaysaa. aad baa idin salaamayaa dhammaantiin, waad mahadsantihiin sida aad iigu soo dhiirigelinaysiin, komadkiina aad baad u mahadsantihiin, subscribe-kana waan iga codsanayaa inaad insha allah isiisiin. intaad isiiseen waad igu mahadsantihiin. channelka ku soo dhawaada, channelka waa channelkiinii insha allah. wixii ay nafteedu jecesha idinkana waa inii soo bandhigaya insha allah. aad baa idin salaamaya, walaalihiina kalena u sheer gareeya. aad baa idin salaamayaana. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.